qabsatay xafiiskii magaalada muqdisho meeshii ay ku leedahay xaalana inay xirayso allay soo gaarsiiyey waa qodobka koobaad qodobka labaad dagaal baa ka dhacay mar labaad Puntland oo loo galay ciidamadii BSF iyo ciidamo kale dowladda taabacsan oo federaalka ah dagaalkaasna 6 saacadood socday dhimashada iyo dhaawaca ilaa hadda wax sheegi kara male laakiin meeshaas khasaare badan ka dhacay maadaama wali la ishayo dan iyo maaragtay raggii taabacsanaa dowladda federaalka Soomaaliya ay halkaas isku hayaan laguna hardamayo wali waan dhowreynaa wixii ka soo baxa Puntland laakiin Puntland dhaxdeeda inay xabado ka socoto ayakii laga faa'iideystay oo ay isfahmi waayeen waa siyaasad xumadaas ninka la yiraahdo Cabdullaahi Dani aan dhihi karaa sababta Puntland warigeeda xabado kama dhicin lamana dhaxgali jirin laakiin waa laga dhax kaloomaystay carada iyo xanaaqa iyo isgoobaynta Dani waayaan dhihi karaa iyo siyaasad xumada laakiin Puntland saan ma ahaan jirin waan ka xumaa anigu inay Puntland oo nabada xabado ka dhacdo ayakiina ay isfahmi waayaan waa ku soo celinaya mar walba waa ka xumaa Puntlandna waa ka xumahay inay ayadu iska dhigto dad aan shaqo ku lahayn dowladda federaalka ah dowladda federaalka haday soo dhax gashaan najaas ay noqonayaan oo ay hankii Soomaaliyana wax ka raadinayaan dowladda Soomaaliya rabaan ummadda Soomaaliya inay hogaamiyaan ayagu ay rabaan aysan u ekayn dad Soomaaliya hogaaminayo federaalka iska ilaalinayaan oo cunsuriyad ay sameynayaan ayadana waa ka xumaa labaduba haddii aad Soomaaliya rabtiin inaad wax ka noqotiin waa inaad dowladda federaalka Soomaaliya ogolaateen reer Puntland intaas ay soo jeedinayaan laakiin waxaan ka xumaay in Puntland dagaal ka dhacay ragga ka dhax kalluumaysanayana waa ka xumaa anigu waa soo laabanaya qaramada midoobay caawi xamaamadeedu waa ka aruursatay magaalada muqdisho sida la ii sheegay qaramada midoobay warbixin ay soo daabacday oo hadda ay sheegtay oo tiri sababtaas aan ku guureynaa oo qoraal ah maal ma jirto laakiin dadka xogogaalka oo ah u dhow ka kalluumaysta xafiiskooda ka warqaba waxay sheegeen in ay yiraahdeen hadallada markii aan meesha u socono degno xafiiska saldhigga koobaad oo degayno annagu halkaas u socono ayaa soo saarayna warbixin sababta aan muqdisho uga guurnay iyo sababta dhalisay inaan xafiiska magaalada muqdisho xirno Nairobi iyo halkaas ayna u jeesteen sida la soo sheegay markaas aan warbixinta rasmiga soo saarayna laakiin rag la sheekaystaan oo dhuun daloola waxay sheegeen inay yiraahdeen federaalkiina waa isfahmi weynay waxbay naga maqli waayeen mucaaradkiina waxbay naga maqli waayeen sidaas awgeed Soomaaliya ma aqaan maaragtay ma daraynayno howlaheeda iyo siyaasadeeda wixii hadda ka dambeeya halkaas aan ka aadayna cunaqabatooyin iyo waxyaalo badan aan soo rogaynaa waa sida ayaka dadkii ka agdhow ay sheegeen Xasan Sheekh Maxamuud oo qorshe halis ah wada asagana waa jira waxyaalaha qaramada midoobay u guurtay ay didsan tahay ay ka didana waa heshiiskan qarsoodida oo Mareykanka ay ogaadeen iyo qolo walba iyo xulufadii ninkii Erdogan ahaa oo garwadeen ka ah Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wuxuu la hadlay Ruushka iyo China wuxuuna ku wareejiyo farta ka saara Soomaaliya amnigeeda inay wax ka sugaan ciidamada geeyaan Soomaaliya oo China iyo Ruushka lagu heshiiyay waana sababta qaramada midoobay iyo xanaaqa iyo Yurub iyo xanaaqda galabtay oo geediga keentay Xasan Sheekh qarsoodi uu ka rabay heshiiskaas ayadoo qarsoodi uu saxiixay nimankan waa soo ogaadeen wax kala qarsoomi karaan markay soo ogaadeen oo ogaadeen saxiixa Ruushka iyo uu la galay nimanka la yiraahdo China Mareykankii waa boodeen iyo Yurub iyo waxaas Yurub waa la shaqeyn kartaa oo Yurub isku meel isku la wada jiraan laakiin Mareykanka iyo Ruushka iyo China isku meel ma soo gari karaan Mareykanku aad buu uga carooday arrintaas waana sababa keenaysa xafiisyadii qaramada midoobay asagoo u taliyay oo ugu awoodda badnaa in la yiraahdo ka soo guura meesha arrimahaas qarsoodida amniga wax ka qaadanayaan lagu leeyahay ciidamada amniga wax ka qaadanaya ay Ruushka soo dirayaan China soo dirayaan iyo gaadiidkooda iyo hubkooda oo meel walba annaka Soomaaliya gaareynay leeyihiin soo salaamayna salaamu calaykum amnina ka dhigayna waxaan safeynayna dhilkii ayada ahaa oo Erdogan ku jirana waxbay ka qaateen sida saacada waana sababta keentay xafiiskii qaramada midoobay in laga shiracada caawa hel guntade wuxuu ku soo gudbinayaa hadaladeen deena dad jeceshahay يا هذا إن عبته وسوكيمت كستم كيجات هالكان دي وجرته هتكون قصبنت هاي أما كومنتي عاي إن دي سو قرتد أما من أمانة دي سو قرتد نفط إلهي إنه يقعد معنا نكاهل بنت داوي نهار فدي أمر والبوا
ilaahay nafta markuu iga qaado ayaan idin hor dhaafi karaa laakiin waxaan aaminsanahay inaan ahay nin wadanaya wadankiisa u dagaalamaya oo si sax soo gudbinaya dhanka qawaariista markaan idii aado qawaariistii ayaa waxaa lagu arkay jidka u dhaxeeyay Matobaan ayagoo raba inay miina geliyaan meeshii oo buurihii dhexe oo maaragtay bacdiga ka shisheeyay iyo Beledweyne u dhaxeeyay ciidamada ku soo yaacay way carareen buuraha lagu dul ceyrsaday halkaasna waxay rabeen inay miina geliyaan wadada dheer oo isku xariiraysa Beledweyne iyo Hiiraan ay rabaan inay ka faa'iideystaan laakiin waa laga ceyrshay meesha dhanka kale Cadaalahay meel la yiraahdo niman murursada oo masagawaa ka yimid shalay oo maqaaxi dhax fadhiya Cadaalahay oo gabdha meel ay shaah ku karsadaan dhax fadhiya ay nimankii qawaariista dagaalkii naqshadii dagaaladii way bedeleen baabuurta Leyle Calaawiga la yiraahdo iska soo buuxiyaan isbaarooyinka toos soo istaagaan eebo lacagta ka soo qaad markii la yiraahdana xabaday bilaabaan nimankii maqaaxid inta lagu yimid laba nin oo murursada oo ciidanka kamid ahayd ciidankii ku dhiman jiray aadayaal raggii ku baabi'i jiray oo sarkaalkii murursada ka soo haray rag kamid oo laba baa meeshaas lagu dilay meydkoodii baabuur Leyle Calaawiga ku xireen ilaa ay waxay sii wadeen meesha la yiraahdo halkaas dhulka maaragtay qawaaristu u badan tahay maxaasi carro ilaahay sii jiidaayeen galgududay la sii galeen nimankaas ay ku jiidaayeen laba nin oo murursada oo ciidamada kamid ahayd masagawaad joogtay ahaayeen nimankiina qawaariista dagaalku waa bedeleen Leyle Calaawiga la soo buuxinaya Leyle Calaawiga markii la soo buuxiyo isbaarada soo istaagtana xabada afka loo gelinaya markii lacagta laga doonto ama lacag laga soo qaad maago Xasan Sheekh Maxamuud dagaalku uu ilduufay meeshii la rabay inuu xoreeyo dhulka shabeellada hoose ah oo ciidamada ay u fududaatay inay isku furmaan Galgaduud iyo Mudug iyo Muqdisho iyo shabeellada dhexe ay isku gooshaan ciidamada Soomaaliyeed si ay wadankooda meel walba u gaaraan ayaa waxa la kala qaaday Hiiraan iyo shabeellada dhexe qawaariisha farta laga saaray waana wax la isla ogyahay oo reality oo kaftan ahayn qawaariista waa shirkado lagu shaqeysto ama Xasan Sheekh ku shaqeeyo ama siyaasiyiinta ku shaqeeyaan waa sida xaqiiqda dhabta ah Xasan Sheekh wuxuu ka adkaaday nimankii mucaaradka ahaa mar dambe warkoodii ma maqasheen beesha caalamka waraaqa u qorayaan habeen walba nin walba email u qoraya tabartu intaasay noqota reebala ayrina ay Xasan Sheekh reebala ka adkaanay uu isku fuuqsaday anigu inta soo gudbiya haday tabar leeyihiin oo xaniyo leeyihiin oo dadnimo leeyihiin ninkaas odaga ahay tala xisaabtamaan sidii farmaajo inta ula xisaabtamaan ay madaxtooyada ka soo saarnaa dhihi lahayn kaalay meesha waxa ku haysid wax ka jira male ummadda Soomaaliyeed doorashadeedii farta ka soo saar alla dhihi lahaa laakiin uu adkaada lama dhihi kara Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu iska wataa beesha caalamka uu ka dhago ka furaysta Xasan Sheekh amin walba uu u dhaartaa I swear a God I don't accept what are you saying uu yiraahdaa amin walba Xasan Sheekh Maxamuud waxaad sheegaysiin ma aqbalay ilaahay baan kugu dhaartay taasoo ku haya Xasan Sheekh Maxamuud waa sida xaqiiqdiya waana madaxda iyo odagu meesha u socdana cid ka soo leexin karta male laakiin galabta fariiraan raba Xasan Sheekh Maxamuud inuu u diro doorashaad ka qabanaysa dalka oo qof iyo cod ah